dhexdhexaadnimada shir guddoonka dastuurka qodobkiisa 65aad farqada 3aad iyo qodobka 5aad farqada 9aad iyo xeer hoosaadka wuxuu ka doonayaa guddoonku in uu noqdo dhexdhexaad marka uu gudanayo waajibaadkiisa ku-xigeenka koobaad wuxuu toos ula saftay kooxda ka wada mooshinka kalsooni kala laabashada guddoomiyaha golaha shacabka iyada oo ay caddayn u tahay kow qabashada mooshin saq dhexe oo aan ahayn waqti shaqo labo iyada oo aysan la ogeyn guddoonka intiisa kale saddex iyada oo uu moshinku kaligiis ku socday arag mooshinka caddayn waxaa mooshinkii la soo gudbiyay codda uu ku socday macnaha qodobka afaraad iyada oo uu la guddoonsaday guddoonka intiisa kale iyo dhammaan xubnaha guddiga joogtada ah in moshinku sharci ahaan jabay kadibna keligiis warbaahinta habeennimo ka jeediyey in uu ka noqday mooshinkana maamulkiisa isaga keligiis gaar u yahay qodobka 5aad isaga oo mooshin keligiis haysto welibana u diiday xafiiska guddoonka iyo maamulka golaha in sida sharcigu yahay loo diiwaan geliyo loona kaydiyo 6 iyada oo uu abaabul cad ugu jiro in uu ku meel mariyo mooshinkan sifo walba oo ay ku qaadato sharci iyo sharci darro 7 isaga oo sheegtay in uu yahay kusimaha guddoomiye iyada oo uu xaadir yahay guddoomiyaha golaha shacabka ogolayna in uu guddoonka intiisa kale iyo guddiga joogtada ah talo la wadaago 8 isaga oo marar badan iyo dad badan si gooni ah iyo si guudba u sheegay in uu la dagaalansan yahay guddoomiye Jawaari iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad wax kasta oo suurta gelinaya iyo cid kasta oo u adeegaysana kala shaqaynaya ridistiisa yaa guddoominaya go'aanka gaarista mooshinka ma jira dastuur ahaan iyo xeer hoosaad ahaan meel sheegaysa guddoomiye ku-xigeenka koobaad ayaa guddoominaya haddii guddoomiyaha laga keeno soo jeedin kalsooni kala noqosho wuxuu xeer hoosaadka qodobka 9aad faqradiisa 5aad xarafkiisa ee ku gaabsaday in muhiim ay tahay in shir guddoominta laga wareejiyo hadba mas'uulka laga keeno soo jeedinta oo u qoran sidan qodobkii 9aad faqradiisii 5aad xarafkiisa ee sidan ay u qoran tahay guddoomiyaha ama ku-xigeenada laga keeno soo jeedin mooshin mooshinka xilka qaadidda waa in laga wareejiyo guddoonka fadhiyada inta ay ka dhammaanayso arrinta la xiriirta soo jeedinta codayntuna waa qarsoodi gunaanad annaga oo xushmad gaar ah siinayna doorka shariifka ah ee uu aqalka sare ka qaatay dhexdhexaadnimada iyo xallinta khilaafaadka soo kala dhex galay golaha shacabka iyo xukuumadda si loo gaadho ujeedooyinka ku cad bayaanka ay ka soo saareen xallinta khilaafaadka waxaanu diyaar u nahay in aanu ku kala baxno cod dimuqraadiyad ah oo aan dhinacna looga leexan dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka iyada oo uu guddoominayo mas'uul labada dhinac dhexdhexaadka ah qodobka 2aad waxa weeyaan waxaan guddiga joogtada ah waxaan codsanaynaa in guddiga joogtada ah kulan degdeg ah ka yeesho arrinta mooshinka si uu u xadido goobta iyo xilliga iyo habraaca lagu qabanayo codaynta
saddex soo jeedinta saddexaad waxa weeyaan waxaan codsanaynaa iyadana aqalka sare inuu goobjoog ka ahaado aqalka jare inuu goobjoog ka ahaado shirka guddiga joogtada ah wabillahi tawfiiq